السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مجاعي واسمع الحسن عبد يوتيوب كداون السنة واسمع التام تي في فضلنا هذا النوع سبحان الله عشان يوتيوب كنا سبسكرايب نوصرته على هذا الرجل جوكتنا إذا كأمل علينا الجوجا كسر النقل عصب ساكسو أركتين بتاعت الكهرباء مستعوان كحجي السربة رمحانتي سنتي قدام بي سومالي آدي حقوق بتاعي آلة السوشيال ميديا قيبيه ذكر الدون سيب آلة تيك توك halkan muuqaalan ku haynaa muuqaalkan waa muuqaal aad ii soo jiitay laakiin aan jeclaystay inaan ka falceliyo wixii ra'yigayga aan ku darsado laakiin intaysan taas dhicinba dad badan ka soo hadlay dad badan afkaartooda ka dhibtay anigana waxaan rabaa dadkaas dhankayga inaan ka raaco aan ka fikir dhiibto saasna waxaan u leeyahay wax kale ma ahan saa u jeedaa muuqaalkan garabkayga saaran qof walba u yaqaana gabadhan qof aan TikTok ku arkin waa iska yar tahay laakiin gabadhan waxbay qof su'aal weydiisay Sheekh Mustafa su'aal weydiisay su'aashaasna qof walba ayaa ku socota Sheekh Mustafa kaliis kuma socoto qof walba sheegta magaca islaamnimo haysto diinta islaamka ayay ku socotaa su'aasha gabadhana wax kala ma sheegayso waxay leedahay waxyaabaha salaada aniga aan ku waayay ayaa waxa ku helay sanam yar la caabudo markaan fiiriyay aan babaaray waxyaabahan ay sheegayso waa sanam sanamka laakiin wuxuu ma sii aqaano dadka isticmaalan ma sii sheegi karo maadaama aanan sii raadinin marka waxaan rabnaa marka muuqaalkaas dadka ka soo falceliyay dad baa si xigmadeysan ugu soo falceliyay dada gabadhi karbaashay in la karbaashana maanta gabadha waa gabar iyada asturneyn dadka commentiga xataa qaara waxay ku soo qoreen maxay ahayd gabadhan gabar macnaha aanan in dukato in kala dad shaki ugu jiraan lahayba marka kuma sii dheeraanahay muuqaalada la fiirsanayna laakiin sida caadada ah like tabacodsi subscribe ka dhiirigelin wixii afkaarna xagga hoos noo reeba ku soo dheer muuqaalkeena faahfaahsan saahoro in kugu soo sheegay gabadha su'aal weydiisay nin culamo waxay weydiisay su'aal waana Sheekh Mustafa qof walba uu yaqaana dad badan waxay dhaheen marka dhanka commentiga akhrisid Sheekh Mustafa ma isticmaalaba TikTok qof sidaan oo kale ma soo jawaabo qof noocaan oo kale u qaaban macna Sheekh Mustafa kuma saqa jawaab inuu soo jawaabo laakiin al-amuum muhaadara mar hor oo duubay oo ugu hadlay barnaamijkan hadda gabadhan ay sheegayso ayaan soo helnay ayaan waxa jeclaysan inaan soo gudbino jawaabtii saxdan ayuu siiyay muhaadara mar hor la soo duubay laakiin waxayba macnaha tacliiq ku tahay la xiriirtaa su'aashan hadda ay weydiinayso marka bal aan fiirsana bal muuqaalkan ee dadka ka soo falceliyay ee ugu soo falceliyay bal asla daawano kow iyadan ku bilaabi doonaa su'aasheedan ka dhageysanayna kadibna dadkii ka soo falceliyay fiiri doonaa Sheekh Mustafa aan u tagi doonaa wixii raayna ugu darsanayna bal inoo bilaab marka muuqaalkeena su'aalan qaba su'aashani tan waxa weydiinaa hal qof halka qofna waxa waaye ninka oo la dhaho Sheekh Mustafa so haddii aanad Sheekh Mustafa ahayn videogaanaytu kuguma socdo kuma khuseeyo mar rabo wax aad dhihi doonto mar rabo jawaabtaada ha iiga soo jawaabin xaraan booliis sidoo kalena kor u soco shaqo ma kulihi qofka su'aashiida iiga jawaabi kara waxa waaye Sheekh Mustafa kaliya okay su'aash meeshta waxa marka sheekha ma isticmaala TikTok sidoo kale dadka waxyaabo adiga aad weydiinaysid dada kugu xiran dada adiga macnaha ku taageersan xataa laga yaabo hadii ku taageersan yihiin dadkaas afkaartooda macnaha iska diiday afkaartooda ma diiday macnaha waxa leedahay waxba afkaartooda ma rabo waxa iska gudba hadda markaa gashid TikTok-geeda soo fiirisid muuqaalkan laba maalin ka hor ahaa intaasoo kun wax ka soo dhiibatay maxay ahayd afkaar ka soo dhiibatay intaasoo qof noo shargaraysay marka intaasoo qof adiga kugu xiran waxa leedahay aniga sheeqaas bis aan u jeedaa taas aad ay ugu qaldan tahay sheeqan nin isticmaalo ma aan social media laakiin marka anaga waxaan ku leenahay maadaama afka Soomaaliga ku hadlaysid Soomaaliyan aad tahay wixii qaldan waa lagu sheegaa wixii saxsan waa lagu sheegaa intii sheeqa la gaarinba dadka ka soo horeeyo ta sheeqa aadan gaarin dadka ka soo horeeyo dadkaasna isla fiirsanayna bal noo sii wada muuqaalka maadaama hadda xaraan booliis dhan ay bixeen Sheekh Mustafa su'aasheed waxa waaye why meditationku uu ii caawiyaa ka badan salaada intay caawiso sababtu maxaa waaye سبحان الله في رب الوحي قال سواء وين سنم بشيء سوى هالله سو أنا عابيو يوعى لا صلاة أنا أدوكه سؤال مركب ماشي تاجر ما حيت سهول إنك وصل شيء مركب كومنتي أفيرسيد قف والبحوث سوق قرارات هذه صلاة من توكتها وسؤال صحة هذه صلاة من توكتها وسؤال ماشي تاجر هذا صلاة دوكنن وحلو شيء وغلط بهالكسر عبودي يسد
dad baa ceer masax kugu siiyo laakiin salaadan haddii wanaagsan tahay shantaada waqti si fiican u dukanaysid sujuudan aa rabbiga aa ku tuugaysid ruuxantii adduunka wax walba hoostaada la keenaa laakiin su-aasha meesha taagan qof walba inuu ka fahmo oo inuu wax ka dhex baxsado la rabo waxaa horta adiga ma dugataa su-aasha qoraystaas waa bal aan kusii socono hope ina videogayga arki doonto I hope su-aashaydana iga soo jawaabi doonto respect why meditationku uu ii caawiyaa ka badan salaada intay caawiso waay ayaa irbad yar haddii badda lagu tuuro ay salka u geynaysaa markabkuna iskaga dul sabaynaya isagoo intaa leeg waay ayaa maroodiga intuu leegaad garanayso haddii kanaaca yari dhegta ay ka gasho ay u dilaysaa waay ninkan waxyaabuu sheega waa waxyaabo xigmadaysan waaye qofka caqliga fahmi karo sidoo kalena si maldahan ayuu wuxuu ugu karbaashayaa gabadha wuxuu ku leeyahay maroodi intaas la eg waay haddii dhegta ay ka gasho kaneeco kaneecada inta waa aragto waa xayaar waa haddii dhegta ka gasho u dhimana macnaha waxaa waaye waa min mucjisaati waaye marka waana wax xigmadaysan waana si wuxuu ugu jawaabay aana inaba caadahayn boqolkiiba boqol markaa tigtoo gashid wiilkana lasoo hadal qaadana aan kusii socono ayaa meditationkan aad hadda ka hadlayso aynan qabriga waxba kugu taraynin xikmadaha isweydii وين قاول صاحب شيخ مصطفى جوابتها كده هذه سيد إله بكو شيخ صاحب you don't wanna listen Allah but you wanna listen شيخ مصطفى هذا يقول تعالى إله بحكله يا أيها الناس أو من كان heerkan wuxuu leeyahay su-aasha sheekh mustafa ka sugaysid inaad iska dhaaftid waxyaabaha rabbiga ku leeyahay dhageyso inta sheekh mustafa aadan gaarinba rabbiga kula hadlay rabbiga wuxuu ku dhax dhageyso waa sidoo kale waa labada qof oo si fiican ugu jawaabtay gabadhan jawaabta saxdan siiyay أنتم الفقراء إلى الله you are in need from Allah subhanahu wa ta'ala is help and whatever that comes from Allah والله هو الغني الحميد صلاة دادو كنت دادو كنين هدايس الصورة هدايس استنى السيدة الله سبحانه وتعالى إشرفت أوليه يباور كيس هوسو مدعيان كورنو مدعيان من يسبدلين الله will always be Allah but you is the one that will die go to your grave qabrigaaga markuu lagu geeyo jirkaaga aan quruxda badan cirbadaha isku xasuudan ay noqdaan markaas suga munkarina kale daa ku dhaamo rabbik sug sheekh mustafa soo weydiiya ma sheegay meditation wuxuu ku caawinayso adoosid indaas ku qabsoosid you doing the action but the salat you not doing it salaada daa dukalaysa ma wahaleen saaxib hadalkiis wuxuu ku soo gabagabeeyay salaada daa dukan lahayn hadaa dukan lahayd macnaha waxyaabaha baa soo sheegi lahaynba wayba iska caddahay qofta inaysan hal mar xataa sujuud u kaana dhigin qofka waxaa og salaada dukado shantiis waqti ku dukado inay salaada tahay nasteexo furaha noloshana ay tahay qofka mar walba rabbigiisa markuu sujuudsan yahay wax weydiisto ayaa macaankeeda sheegi karo qofkaan maba sheegi karaba inay salaadii macna inay qaraar tahay wiilkan wuxuu ku soo gabagabeeyey haddaa ogaalay salaada macaanteeda adigaaba macnaha waxyaabahan social media soo dhigi lahayn marka aan bal aan gudagalno sheekh mustafa jawaabtuu siiyey gabadhan muuqaalkana sii dheereey marow meditationku uu ii caawiyaa ka badan salaada qofka mu'minka ah ee dhabta ah ee salaadiisu salaaddii saxda ahayd ay tahay ee sidii rabbi uu tilmaamay rumaysan ee wuxuu ku hadlaya garanaya ee suu tukanaya garanaya dhaqankiisa waxaa iska beddela arrimaha kan inaanu mashaakilku warwargelinin nicmaduna kibir gelinin ama keligii inuu noolaado inaanu u fakarin jawaab sax ah hadda ma dhaheena macnaha waxaa waaye sheekh isla markuu u soo jawaab ma dhaheena waxaa muxaadaro oo mar hore duubay ayaa laga soo xigtay ayaa waxaa loogu dhigay jawaab waxaan leenahay gabadhan Soomaaliyeed magaca Soomaaliya wadato lahjad Soomaaliya ku hadlayso walaalay haddaadan salaada dukanin salaada duko salaada macaankeeda bal soo arag sidoo kale sujuud rabbigaaga ku baray adoon xuna tahay meesha lagu soo jira ma ogid xilliga nafta ka bixaysa ma ogid salaada macaanteeda horta soo dhimi bal qof waxa ka sheekay kara Allah salaada macaanteeda qof tukada rabbigiisa sujuud ku bariyo salaadiisa badan tahay istighfaartiisa badan tahay ayaa macnaha sheegi karo cibaadada waxay tahay inay macaanta inay qaraar tahay laakiin adigoo kala inaad macnaha dhahdo salaad wax iima qabanayso laakiin waxyaabahan la caabud wax ii qabta aan leedahay laakiin waxaan leenahay salaadaada haddii ay wanaagsan tahay salaadaada haddii wanaagsan tahay wax walba ku wanaagsan tahay haddii salaadaada xun tahay wax walba waa kaa xumaanaya noloshaaba kuu soo uraysan marka waxaan leenahay intaan muuqaalka gabagabeynin sida caadadno laagta codsi subscribe waa dhiirigelin wixii afkaarna xagga hoose noo reeba
waxaa idinkaga teginaa muuqaal caynkan oo kale inta dib ugu kulmi doono sidaas iyo amaan allah